foshta iyo biltaka Elisa och Ayanle och Samo och Mado. De är här och hjälper för folk. Igen jag vill tacka. De är här och hjälper för folk. Har man نقيا قورين إليسا يا Ayanle يسمى Mado يعيد كستو مشروعا كنتي halkan أنا ku hadlay afka golaha deegaanka degmada Barco waxaan runtii uga mahadnaqayaa cid kasto mashruuca keentay runtii oo mashruuca ballaaran oo faa'iido u leh reer beereed iyo guud ahaan Soomaaliland arintii Mustafa ka hadlay ee halkan oo hadii jirto in iskuul kale oo beeraha laga wado meel kamid ah Soomaaliland runtii waa arin aan suuro galay waa arin aan la aqbali karin waayo iskuul kara la doonay in la dhameystiro oo iskuul Soomaaliland ay wada leedahay oo meel kasta ay ka iman karaan kaliya waxa ardayda in la keeno oo la bilaabo dawladuna ma qaybsamayso mashruucana ma qaybsamayo marka waxaan ka codsan lahay cid kasto hawsha la sheegay hadii ay cad ku hayso inay kana la dhameeyaan dabeetana anaguna aanu ka dambe la dhisno iskuul kasto Soomaaliland ku yaala oo la wada wuxuu faa'iido u yahay Soomaaliland waxaan leenahay sirka beeraha iyo kii ka horeeyay oo geedo oo waxbarashada imka jooga in hawsha runtii hadii ay jirto dub u eegaan oo iskuulkan la siiyo biologiga dawladda waxa leenahay sidii la sheegay wixii ay ballan qaadayso annaguna golaha deegaanka haddaanay waxaan ballan qaadanaa inaanu wixii aanu ka geysano runtii maadaama aanu baahanay inaynu wax soo saarno oo dadkeenu ay maaragtay ay la soo baxaan waxaynagu aynu la soo baxno waa dhiirigelinaa mar labaad oo mahadnaqinaa ururka Samo oo aan laantood suura gelin iyo maado runtii mashruuc aad u ballaaran Mustafa aqaan runtii waan imika waxaan ma arag intii aan joogay mashruuc kala sida kala qalabka la keenay waa qalabkii hore oo la jiray oo qalabkii Yurub laga isticmaali jiray marka runtii waan aad baan runtii ugu faraxsanahay mashruucan waxay noo soo xiri doonaa